muusku waa khudrad dhadhan wanaagsan oo cunitaankeedana ay jecel yihiin dhammaan dadka waaweyn iyo kuwa yaryariba waxaana isticmaalkiisa ku jira faa'iidooyin ballaaran iyagoo ay ku jiraan xaddi ka mid ah maadooyinka sonkorta borotiinka iyo xaddi badan oo ka mid ah fiitamiinaadka oo ay soo raacaan macaadinta dhanaan kale muuskuna waa khudrad ay bani aadamku ku heli karaan tamarta dabiiciga ah ee ugu wanaagsan mana laha wax soorac ama kolestarool waxaana isticmaalkiisu hoos u dhigaa dhiigkarka isagoo dhammaan daraasadihii laga sameeyey caddeeyeen inuu yahay cuntooyinka caafimaadka qofka wanaagsan maadaama ay ku jiraan macdanaha birta iyo kuwa kale ee dhanaan kale waxaana isticmaalkiisu kaa taageera in beerkaagu shaqadiisii caadiga ahaa si caadiya u qabsado isagoo sidoo kalena yareeya xanuunada keliyaha faa'iidooyinka kale isticmaalka muusku leeyahay waxaa ka mid ah isagoo ah maado ka mid ah cuntada faa'iidada leh maadaama uu jidhka ka saaro gooryaanka waxaana ku jira maadada fosfaydka oo ah maado ay u baahan tahay oo lagama maarmaan ay u tahay qaybta xusuusta ee maskaxda aadamuhu cunitaankiisa subaxnimada horena waxay keentaa inuu muusku ka hortago laabjeexa iyo gaasta islamarkaana sahlo hawsha qaybta dheefshiidka ee jidhka haddaba iyadoo faa'iidooyinka iyo kuwo kale oo badanba uu leeyahay cunitaanka muusku ayaa haddana waxaa jirta in muusku daaweyn buuxda ka yahay hurdala'aanta ama hurdayaraanta waxaana daraasadihii la qaaday muujiyeen in qofka hurdada u baahan uu cuni karo midh ama 2 xabo oo muusa kadibna uu fadhiisto muddo 10 daqiiqo ah isagoo aan samaynin wax dhaqaaqa waxaana hubaal noqon doontaa in qofkaasi uu luloonayo oo ay hurda qaban doonto waxaa kaloo jirta in qubka muuska laftiisu ama diirkiisu uu faa'iido weyn u leeyahay dhalaalka iyo qurxinta jidhka iyadoo culimmadu caddeeyeen in diirka muuska oo lagu masaxo jidhku sida wejiga oo kale ay keenayso in midabka jidhku caddaado oo iftiimo waxaana diirka muusku gacan ka geysan karaa masaxaadda wejiga iyo kabaabiinta finanka yaryar ee loo yaqaano fintoobka cunitaanka muusku waxa uu faa'iido ballaaran u leeyahay dadka shaqooyinka culus qabta waxaana uu dhisaa oo xoojiyaa muruqyada oo uu kordhiyo awoodooda maadaama muusku leeyahay macaadinta kaalshiyamka fosfaydka iyo xadiidka ama birta sidoo kalena ay muuska ka buuxaan fiitamiinaadka kala ah fiitamiin E-ga fiitamiin B1 B2 B6 B12 iyo weliba fiitamiinada kale ee D G iyo H waxaana muuska oo ay ku jiraan maadooyinka kaarboonhaydraytka iyo borotiinku uu isticmaalkiisu u wanaagsan yahay haweenka uurka leh iyo kuwa jaqsiinaya